maanta waxaynu ka hadlaynaa faa'iidooyinka inoogu jiri karaya inaynu nolosheena waxyaabo fara badan yarayno insha Allah ama mashquulka fara badan aynu ku jirno maalin kasta aynu wax ka bedelno oo aynu noloshii slow down garayno insha Allah dad fara badani waxay u haystaan haddii aanad hawl badan qabanayno noloshaadu aanay ku soconayn fast iyo xawli horumar samayn maysid dad baa dadaalka taa u yaqaana laakiin guys maanta waxaynu ka hadlaynaa guusha weyn ee ku qarsoon ee ku jirta inaad noloshaada wax fara badan oo mashquul ku gelinaya aad meesha ka saarto oo taana guul weyn oo aan yarayn aad ku gaari karaysid Welcome everyone to ACS TV show. maanta waxaanu ka hadlaynaa saan idin sheegay guys wixii cusub oo aynu nolosheena hadaynu u sameeyno in faa'iido weyn kala baxayno dadkuna qaar fara badan arrinkaas uu ka qarsoon yahay waayo waxa yaraanteena lagu tarbiyadeeyay in lagu koriyay dadaalka fara badi yani hanasanin break naftaada ha siinin saasad guul ku gaaraysa haday shaqo tahay dadun ba habeenay maalin shaqaynay 2 shaqo 3 shaqo aniga waa ku jiray dadka Mareykan markaan joogay 2 shaqo waa isku hayay 3 wali isku ma qaban laakiin 2 waa isku hayay oo aan nasan jiray midna weekdays kan qaban jiray midna weekendka marka guys waan soo wada marnay waxyaabaha khaladaad fara badan ayuu qofku sameeyaa markuu nolosha noocaas ee faaska ah ku nool yahay aniga kamida khalad fara badan way iga dhacay because saasan u fahamsanaa marka nolosha hase yeeshee qofku uu weynaanaya waxbuu baranaya aqoon kororsi fara badan buu sameynaya waqtigu wuxuu ku baraya inaad noloshaadi siyaabo kale oo taa ka fudud aad guul ku gaari kartid oo aad wax fara badan haddaad meeshii kaba saarto khayr kuugu jiro fara badan insha Allah dadka qaar fara badan oo shaqeeya si gaara dadka qurbaha jooga way wada shaqeeyaan because wax bilaash la isu siiya iska yar single mother haddaad tahay mooyaane wadanka camal la'aanta iska fara badan soo dadka wadanka jooga waxa laga yaabaa videogan inay yiraahdaan baasiyay maxaanu yarayna meesha camalba kuma haynee ma garatay laakiin it's okay idinkuna wad ka faa'iideysan guys wax fara badan baa idinku jira oo dulqaata videoga insha Allah dadka dabadda jooga ee shaqeeya 2 shaqo 3 shaqo isku hayaan si ay noloshoodii u kafeeyaan okay Mareykan anigu waa shaqaynayay non stop 7 days a week baan shaqaynayay waxaad u shaqaynaysaa oo dhan wuxuu ku noqonaya noloshaadii dib ugu noqonaya kiraad bixinaysaa leyd baad bixinaysaa gas bill baad bixinaysaa cuntadaadii gaarigaagiyo aad installment payments ama hafto ku bixinaysid insurance-kii gaarigaad bixinaysid credit cards-kaad wax ku soo iibsayad iyo kana cheega ku jiraysid waxaan ku oriyay yani waalida si aad u maintain garayso oo nolosha quruxda badan aad haysato waa inaad tacabka fara badan dib u gelisid taasi laakiin guys maxay keenaysaa qofkii isagoo aan ogeyn ayuu gubanaya okay waad gubanaysa you will burn yourself out okay xitaa halka waa ka dhacda imika YouTube-ka saalir hadan ka dhigto guys hawl yar maaha wax qabadkiisu dad fara badan waa ku gubtaan anu ma sheegay dadka maalayacniga u soo galay habeenay maalin dambiga ugu jira waxaan ka hadlay dadka khayrka u soo gala ayaa xitaa walaalayaal waqtigoodii anu ma aqaan dadka dhan laakiin wadaalaysa because waa inaad fikir keentay waa inaad mowduuc soo diyaarsay waa inaad u soo diyaargalay waa inaad duubtay waa inaad ka shaqaysay literally shaqo dhammaystiran weeyaan YouTube-ku qofku markuu joogto u qabto wuu daalaya wuu gubanaya taasina waa igu dhacday waana kamid sababaha aan bariyahan uga daahay sanadkan oo dhan bad kala badbu sanadkii maraya intii la arkay sanadka waa iska yaray laakiin maxay ahayd taasina waxaan fahmay ma awalba waan fahamsanaa laakiin waxaan u fiirsaday baan u jeedaa waxaan u fiirsaday inaan iska yara tambadiyay marka maxay noqotay waxyaabo fara badan inaan horena wadiga maqshin inaan meesha ka saaro markaan daalo inako halkan waxa baynu ka hadlaynaa qof bini aadama oo daalaya markuu muddo iska tambadiyo wuxuu qabanayaa ama shaqo ama waxbarasho ama hooyo caruur dhalaysa sanad kasta taa horta ma laga fikiraa hooyada sanad kasta dhalaysa iyadana waxa loo diray shaqadii adduunka ugu adkayd mar uur bay leedahay mar waa walac mar uur bay leedahay mar waa umul mar way korinaysa hadana waa lagu celiyaa
haddana waa lagu celiyaa loogama yacni turayo loona ximaayo markaa guys ama arday noqo oo waxaan ku waxbarashada iska tambadi break qofku wuu u baahan yahay waxay doontaba ha noqoto waxaad ku mashquul tahay habeen iyo maalin waad gubanaysaa waxaan ku sarjoogaad ka dhacaysaa caafimaadkaagay ka muuqanaysaa cimri degdeg baa kugu dhacaya ma fiicna saasi guys sinaba uma fiicna maskaxdaada niyadaada mustaqbalkaaga uma fiicna because markaad hawsha iska farabadiso noocay doonto ha noqotee natiijadaad soo saaraysidna ma qurux badnaanayso because waxa weeyaan waa natiijadii ka soo baxday qof daalan okay biniaadan baynu sheegaynaa baan idha gaadhigu cusub iminka kala soo bax warshadda kaala arag buu u shaqaynayaa injinkiisu waa powerful oo uu qurux badan yahay laakiin markaad waddo uun sanadka ka dambeeyo waddo gaadhigii maanta dambe wuu jabaya maalinba meel yar baad jabaysa ilaa uu xumaado gaadhigii isdhiibo okay guys waa sida so looma baahnaa in halista uun lagu jiro un kuwad goortaad dhacdo aad sarajooga ka dhacdona waa markay too late tahay marka adigii baa lagaa rabaa inaad naftaadii marba break siisid waxbarashada laftigeeda waa laga yara nasnastaa okay shaqada waa la kala yareeya dabadahoo kale dad baa dad u shaqeeya yacni ama sharikad baad u shaqo tegaysa ama qof kale aad u shaqaysa dadkaasoo kale xorriyad ma haystaan shaqadooda xilligay doonaanay ka nasan karayaan because waa la eriyaya so waa inay sugaan fasaxyadoodii waad garateen laakiin dad fara badanina naftooda u shaqeeyaan businessya haystaan iyo ka waqtigoodii gacantooda ku haysto maamusha guys siday doontaba ha noqoto dadka laftigooda dad usoo shaqeynaya shaqo tegay xafiis kasoo xaadiraya ama meel kale ku darsada xisaabta every single day maalin kasta naftaada nusu saacana ha ahaatee waa inaad waqti keliga isa siiso waqtiga inaad keliga isa siinaysid waa waqtiga naftaada kusoo noqonayso daalku kaaga ba'ayo cidla naftaada ula bax qolis kusoo xidh nusu saaco yara jiifso rejuvenation buu jirkaagii oo dhan ku samaysmaya dib isu cusboonaysiin ayaa ku dhacaysa okay maskaxdaada way yara nasanaysaa alright markaad wax kala garan weydaan maalintii dhan haddaad shaqaynaysaan hawsha idinka fara badan tahay bas habeenkii hurdo fiican ku dadaala inaad heshaan oo habeenkii goor hore seexataan marka guys arki maysid cid kuga odhanaysa naso cid kuga odhanaysa waqti naftaada la qaado cid ku odhanaysa breega isu qabo arki maysid meel kasta waxaad ku arkaysaa un adigiyo lagaa rabo waxaan ku odhi un keen ayuunba adduunyadii iyo dadkii ku leeyihiin iyo duruufahaagii hoo cid ku odhanaysa way yar tahay oo kuu eegaysa hoos oo kuu fiirsanaysa baahidaada eegaysa okay marka xitaa familigaaga haddaad gabarta xitaa ninka ku qaba ku xasuusan maayo hoos kuu eegi maayo wuxuu ku haysta caag machine robota dumarku iyakaa wax hoos u eega dumarku iyakaa naxariistu ku jirta oo eega ilmahooda hadduu daalan yahay fahmaya ninkii waa kuwan adduunba iyakaa ka xambaarsan isagu guriga waxaan ku ori wuu usoo hurdo doontaa iyo waxaan ku ori nasasho mooyaane xil isma saarayo fara badan markay noqoto arrimaha qofku ku nool yahay qofku wuxuu ku nool yahay dhiirigelin iyo danayn in lagu daneeyo inaad niyadda ka noolaato ayaa ka muhiimsan inaad yacni jirkun ka noolaato unoo dee wax cuntida istaadi gaajo haw baktiyin taasna waa muhiim guys of course waa muhiim laakiin yacni niyaddu inuu qofku ka dhinto waa halis dadkuna niyadday ka dhintaan markii niyadda ka dhintaanna maxaa ku dhaca way isxidhayaan bes zoonkaasi ku jirayaanuun khalaas taasina waa markay imanayso inay stress fara badan ku dhaco stresskaasina waad ogtihiin gaas xanuunadii baa xigaya okay farxaddii qofka halkaasi ku dhammaansi cimrigiisina saasuu ku cunaya markuu goortuu kaco uu baraarugo goortuu qofku baraarugana waa too late waa gooray saacaddii ka dhacday iyo cimrigiina ka dhammaaday markaasuu qofku isweydiinaya okay adduunyadii intaasaan kusoo noolay maxaan soo qabsaday
xasuus farxad leh xitaa waxaa laga yaabaa haddii taariikhdaada dib u soo baadho waqti muddo dheeraad farxad ku noolayd inaad ka dhex weydo oo noloshaadiiba saad u ordaysay unaad mashquul u ahayd una nolosha daba cararaysay iyo maamulkeeda ay saacaddii kaa dhacdo guys. marka guys nuxurka videogu waxa weeyaan noloshaada slow down garee. horta bal like-tana ha ilaabina guys, waad ilowdaan like-ta ku dhufta inta halkan soo gaadhay like-ta ku dhufta. slow down garee noloshiina. okay, qaybta labaad waxa weeyaan markaynu nolosheenii hakino. qaybtii hore soo maynu fahmin xawligaasun in lagu ordo looma baahnaa. qaybtan kale waxaynu ka hadlaynaa markaad noloshaadii breega u qabato slow down garaysaad yacni aayar hakiso unyar u socoto waxyaabahaad kala bixi kartid ee faa'iido ah. number 1 faa'iidada ugu weynaad kala bixi kartid taa guys waxa weeyaan adiga inaad dib indho cusub wax ku arkaysid. noloshii weji cusub bay kula yeelanaysaa. waad fahamteen wax fara badan oo aanad arki jirin baad arkaysa. ilaan awal waxaad ordaysayuuna wax kasta waxay kugu dhaafayeen orodka. faa'iidooyin kale yacni waxyaabaha cusub markay kuu muuqdaan waxaa laga yaabaa inaad wax kala dhex baxdid, aad qabsan kartid oo naftaada ku raali gelin kartid oo farxad noloshaada kusoo kordhiya. haddaad business leedahay, haddaad wax baranaysay oo aad ka yara hakato oo aad ka nasato, faa'iidada kala baxayso nasashadaas maxay tahay? energy cusub baa kusoo gelaya oo aad waxbarashadaadii kusii wado oo aad shaqadaadii businesskaagii kusii wado. waad soo nasanaysaa, xiise dambe kuu soo gelaya wixii aad awalba qabanaysay. waayo awalba waxaad u qabanaysay waxa laga yaabaa waad jeclayd, laakiin si kasta aad u jeceshay waad ka daalaysaa. okay, anigu youtube-ka aad baan u jeclahay inaan soo gudbiyo fiidiyoyo faa'iido leh oo dadka anfacaya. haddana waa ka daalay. hadda wax faa'iidalaan soo gudbinaya laakiin haddana waa ka yara daalay. waayo bini aadan baan ahay. okay, bini aadan baan ahay, waan daalaya. waa laga wada sameeyay. markaynu daalano waxaynu u baahannahay inaynu is dhiirigelino. marka maanta anigu waa idin dhiirigelinaya insha allah, idinkuna aniga ay dhiirigeliya. videogana ku dhiirigeliya like-ta always insha allah. marka guys muhiim weeyaan insha allah inaynu arrinka so guys maxay ahayd ahamiyadda inaynu nafteena ku kaliyeysano, nasino, seexino, cidlo ula baxno. buuqa adduunyada oo dhan waxaan ku uri daaqadaha ka xidhano ka dalacno muhiim weeyaan. anigu iminka baryahan dambe tusaale haddaan idinka dhigto guys, naftayda idinka dhigo. horta businesskaygii Arzali Massage Center waan hakiyey sidaan horeba idinku sheegay. ogaan baan u hakiyeyna. business license-kiisi weli waa socda laakiin waa soo yara hakinaya insha allah. because waxaan rabaa inaan break ka qaato. waan ka daalay, waxaan rabaa inaan break ka qaato oo waxyaabo kale insha allah aan qabsado oo haddaan soo xiiseeyana waa u soo noqon. haddii kalena bal waynu arki doonaan noloshu halkay maxay ahayd dee ila tagto insha allah. waxaanay ka mid ahayd nasashinta naftayda because anigu iminka waad la socoteen ilaa 2020 ilaa intuu corona bilaabmayba waxaan ku jiray hawlaha nolosha inaan wax ka bedelo oon fududeeyo. badan baan ka hadlaya arrimaha. haddaan wax daadiyo, xafiiskii guriga kala daadiyo, taa weli waan wada, maba joojiyo. taa guriga dhan fudayd ka dhigo, inaan anigii maskaxdaydii fudaydiyo, inaan hawlaha iyo waxaanan sidee fara badan iska kala dhigo, inaan waqti fiican iska seexdo, in caafimaadkaygii number 1 ilaashado. okay, because adduunyo eryo waxaan ku iri guys, adigunbaa hadhowto waxaan ku iri dee ku baaba'aya. waad fahamteen adduunyadina weli waa halkeedii. marka waa farsamo, lama odhanayo nolosha ka dhaca oo waxba ha qabsanina, laakiin waxa la leeyahay faham goortay naftaadu u baahan tahay nasasho, goortaad u baahan tahay inaad break qaadato. maalmaha qaarkood xitaa maxaan sameeyaa, iminka iskuulkii fasaxii baa la bilaabay, shalay toon baa naloo bilaabay. ciyaalka iskuulka markaan u diro maxaan sameeyaa, koob koofiyaan iska soo qaata, marmar barandahan iska fadhiista. waa xilliga cadceedu soo baxayso, hawadu qabow, quruxda maasha allah.
buurahaasaan iska daawada dhirtaasaan iska daawada shimbirahaasaan iska dhegaysta waqti dheer baan waqtigeyga halkaa ku qaataa koofigeyga maasha allah tabaaraka allah maskaxdayda fekeraa wax isku yara maaragtay rogrogaa maasha allah waan iska baxaa hadhowto gurigaan iska gala filim baan iska daartaa Netflix ayaan iska soo xidhay Netflix baan filim iska camirtaa okay why not nasashada anigu horta waxaan ku iri imika 2-3 sanadii u dambeeyay baan aayar u soo kordhinaya waayo waxaan ahaa anigu dadkii noloshooda oo dhan ku qaatay orod waxbarasho shaqo aan lahayn nasasho aan lahayn break la isu qabanayo aan ma jirto so the last 2020 laga soo bilaabo waana inta hablahayga iga soo yaro weynaadeen intaas weeyaan intaan madaxaba kor u qaaday imika ee aan noloshiiba si kale u eegayaan slee okay yeah marka guys anigoo shaqaynaya anigoo wax qabsanaya anigoo wax baranaya ayaan haddana waxaan ku ori break fara badan iyo nasasho fara badan meeshii ku soo daraya alright halkii noloshu markii hore ka wada haydan xuuftun hayo xawli ku carar oo mashquulun ku jir because saasa horumarka lagu gaadho way dhacdaa waa lagu gaadhaa qofka habeenay maalin hadduu shaqeeyo horumar wuu gaadha laakiin markuu gaadho horumarkiina isagii bay ka dhamaatay qofkii bay ka dhamaatay marka macaansan maayo tacabkiisii qofkii markuu isagiisa soo gubay by the time uu ku guuleysto howlgalkii wixii shaqo uu hayay caafimaad daro ku dhacdo qofkii uu soo dhaco ma fahamteen faa'iidona ma laha markaa guys noloshuna maaha uun يعني horta lacag eriyo maaha noloshu lacagta waxa fiican inuu qofku noloshiisa markay asturan tahay uu ku qanco uu raali ka ahaado inta baraka imanaysa markaa guys taas meeshii aan ka bixin hungurigu dadka meel daran buu ka ridaa hooyooyin baa jira qurbaha hagbado ku jira meel kasta hagbad kaga jira oo hagbadahaas uun ururin qaar badan baa halkan iga maqlayee lacagta hagbadaha ay ururiyaan halkan wadankii kaga soo dhisanaya fooq caruurtoodii qurbahana wax fara badan ka dhiman yahay xitaa dhigahaygan ku maqlay guys dad ka sheekeynaya oo waaweynaaday imika oo la hooyaday xitaa cunto fiican ma siin jirin si lacagtuna ururinaysay labada dhagood baan kaga maqlay dumar waaweyn iyakii caruuro imika leh waayo hooyooyinkood waxay ahaayeen dadkii islaha marka hooyadaasna dambi ma laha waxay islahayd qurbaha ka faa'iideyso waxay islahayd caruurtaadii wadankoodii uga dhis guri oo ku soo nasay marka fikirkeedu muu khaldanayn laakiin waxa seegtay iyadii inay caruurteedina marxaladda ay yar yihiin ay u baahan yihiin xasuus fara badan oo qurux badan inay iyadii la yeeshaan hooyadood ahayd okay oo ay waqti la qaadato ay waxyaabo ay kaga farxiso u iibiso oo maaragtay xasuustoodiina tacab ay gashato because caruurtu xasuustood waa muhiim waxaad yaraantoodii xasuus fiican gelisay way la weynaanayaan ka harimayso iyaga waxay taasi u noqonaysaa taariikh nololoodkoodii markay yaraayeen adiga markaad adduunyada ka dhimataad ka baxdo waxay ka haystaan caruurnimadoodii taariikh qurux badan iyo xasuus fiican laakiin dad caruurtii gaajo ku dishay oo shinan kun ururinaysaa adna isleedahay iyakii baad u qabanaysaa iyakina waxay tabayaan inaad dayacday you see isfaham la'aanta marka guys mawduuca in la nasto in breega la isu qabto guys ilaahay baa inoogu talagalay okay adduunyada haddaad istiraahdeed ka tusaale qaado so adduunyadeennu ma soo marto seasons fall winter spring summer maxaa la yidhaha saddexdii biloodba soo cimiladu isma bedelaan hawadu dhaxanta barafka waxa ku xigay spring iyo roobkii xilli roobkii summerkii baa ku xigaya kulaylihii fallkii baa ku xigaya iyo waqtigay caleentu ka daadato geedaha wayba marxaladaha kala duwan ilaahay adduunyada u soo mariya because waa siday adduunyadu ku korayso ay ku isku anfacayso waa inuu isbedel yimaado adduunyadu waji kaliya hadday yeelato guys ma soconayso okay adigii haddaad shaqaysidun hawlun ku jirtid noocay doonto ha noqotee ama hooyo guri dhex fadhiyo sanad kasta dhalaysa noqo ama nin business millionaire noqo oo businesskaasun ku waashay waa inaad isu hakisaan oo break isu qabataan adduunyadu si break isugu qabataa markay 3 bilood barafto oo ama muddo dhaxanta barafto oo ilaahay muxuu yiraahdaa subxaanahu wa ta'aala okay kana soo barafkii
adduunyo waayo adduunyada haddii barafun ku jirtona dee ma soconayso waa lagu dhimanaya waa ku baaba'aysaa ilaahay muxuu sameeyaa diirimaad buu keena iyo roobkii buu yidhahda barafka ka maydha dunyada oo dhulka waraabi suu dhulkii haddana qalaylkii uga ba'o barafku keenay ilan barafku waa ka qalajinaya geedihii okay waayahay roobkii markuu muddo do-o ee uu dhulkii dhergiyo ilaahay haddana muxuu yidhahda isbeddel haddana ka naso arrinkan roobkan fara badanoo kulayl galiyo cadceed badan waayo roobkii dhulkii markuu ka dhergo cadceeddii ku dhacdo iminka geedihii baa soo wada baxaya cagaarkii baa soo wada baxaya dhirtii baa caleemaysanaysa samarkii waa kaa diirimaadkaana adduunyadu waa u baahan tahay diirimaadka marka haddana ku jirto 3 bilood iyo haddana ka yaranaso foolkii baa la gelaya caleemihiyo qurux bataa casaan yeesha yalow yeesha waddanka laguma arkeen okay taasina maxay geedkii laftigiisii ayaan korayn haddaanu isbeddel markas arag geedku waa inuu marna qalalo mar waa inuu caleenta daadiyo mar waa inuu caleen cusub soo saaro waa inuu nasnasto weji kaliya ma yeelan karo haddaanu geedkii weji kaliya yeelan karin haddaana adduunyada weji kaliya yeelan karin adiga yaa kugu yidhi weji kaliya yeelo oo waxaad noqotaa un qof uun shaqaynayo unoo raraan una waxaan ku idhi aan nasanaynba yaa kugu yidhi marka ma socoto guys miisaanka adduunka dhan baa ah isbedbeddel adiguna la jaan qaado isbedbeddel okay maalin ka dhac seexo maalina dadaal shaqayso maalina waxaan ku waxaan okay maalmahaaga kala bedbeddelo naftaada marba weji cusub u samee alright ha u xaasidin oo ha u xistiyin inay nasato hadda 9 seexda anigu 9 sariirteeda taga alxamdulilah rabbil caalamiin 5 markaan salaada u kaco kuma noqdo okay kuma noqdo khalaas danahayga iyo hawlahayga ayaan kala gurtaa laakiin ayr baan kala gurtaa bilaa wareer bilaa too much xagganu carar waa socon weyde iminka soo lama gelin fasaxii ya maanta noo 2 shalay buu noo koowaha soo 7 week weeyaan yani waa bil iyo badh almost fasaxa waan dadaali aniga kulaylku iskuma fiicnin ma jecli kulaylku markuu jiro videohaat inaan sameeyo laakiin waa dadaali doona samarka insha allah in videohaatka soo badiyo alright saasina ku khatimayna insha allah dadka imika soo gaaray gobtii nasabkii halkan ila soo gaaran way la khatimaan iyagu maqaaxida way la xidhaaneen waxaan idinka codsanayaa arrin guys okay waxaan idinka codsanayaa inaad gashaan channelkayga okay channelkayga markaad gashaan guys channelka markaad tagtaan uu channelku saa idinku muuqanaya ma aragteen channelkii baad ku jirtaan guys halkan imika waxa ku qoran halka home aad ka arkaysitaan xagga markaad usoo yareerixdii videos waa videohaadkan soo duubo haddana markaad soo yareerixdii shorts waa videohaadka daqiiqada socda haddana waxa ku xiga playlist haddana community goobta waxaan uga baahanahay community inta taabataan videoyada halka idinka soo baxay ha shidisu ma baahna like-ta ii wada saara ma arkaysaan like-ti waa taa dhac haddana ka kale dhac haba daawanina like-ta uun waa community-ga like-ta ii wada saara ilaa videoga u hooseeya waa fahamteen taa markaad ka timaadaan guys qaybta shortska okay shortska waa kuwa guys waa ka saddexaad shortska haddana ii taabta daqiiqad bay soconayaan guys kuwaana like-ta wada saara intaa waxaan ka codsanayaa ciidanka gobta ah like-tu waa muhiim walaalayaal dadka gobta ah ku noqda videohaadka community-ga like-ta wada saara shortska saara videohaadka intii aan idin saarin saara fadlan dhac weeyaan waqti idinka qaadan mayso badan waa bilaash lacag kuma baxayso laakiin way caawinaysa channelka anna aad bay ii dhiirigelinaysaa soo ila shaqeeya ila dadaala anna waa idin dadaalay insha allah saasi videoga dambe maca salaama